Asalaamu calaykum walaalaha ku soo dhawaada qaybtii labaad. Qaybtii hore waxaan uga soo hadalnay astaamaha dumarka qaarkood ay tahay raggu inay ka fogaadaan guurkooda. Qaybtan waxaan uga hadli doonaa astaamaha ragga qaar oo ay tahay dumarku inay ka fogaadaan guurkooda. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Gabar kasta waxay ku riyootaa inay hanato wiil halyey ah kaasoo ay ka soo dhex dooratay kumanaan wiilal ah, balse uu noqon karaa boqorkaasi. Sideen ku garan karnaa? Waxaa laga yaabaa markii ugu horreysa inay u muuqdaan ragga qaar kuwo wanaagsan, balse waqti badan oo aad wada qaadataan ayaa qofka wanaagiisa ama xumaantiisa lagu kala ogaan karaa. Haween badan waxay door bidaan inay ku noolaadaan kaliinimo halkii ay la noolaan lahaayeen rag aan u qalmin noloshooda ama dhibaatayn lahaa oo rajo xumo gelin lahaa. Ragga qaar ayaa waxay caadaysteen inaysan iska bedelin dhaqamo xunxun oo ay lahaayeen, kuwaasoo la tagay waqtigooda. Gabaray, waxaa kugu waajibay inaad si qoto dheer uga fiirsato qofka aad guri wadayga leelaysaan oo aad mustaqbal wadaagaysaan. Annaguna haddii aan nahay bahda kororso, waxaan kaa saacidi doonaa helitaanka macluumaad ku saabsan ragga qaar oo ay tahay inaad isaga fogaato guurkooda. Nooca koowaad, daciifu shakhsiya. Haweenka qaar ayaa waxay jecel yihiin inay guursadaan rag ay ka amar sarreeyaan oo ay u talin karaan, si ay u noqoto tan xukunta umuuraha guriga oo idil kuna amar sarreysa. Mar walba ay la soo gudboonaadaan caqabado, haweeneydan waxay ku qasban tahay inay kaligeed ka gudubto, waayo ninkeeda waa daciif oo awood uma laha inuu kala gudbo caqabadahaasi. Nooca labaad, an-narjisi. Ragga noocaana waxay jecel yihiin inay ku cayaaraan qofka kala dareemihiisa oo ay mar walba niyadda ka dilaan. Sidoo kale bilowga xiriirka raggani waa kuwa soo jiidasho leh. Markii ay gabadha u gacan gashaan ugu duleystaa, qiimaheeda ayuu dhulka la galaa, wuxuuna ka helaa mid aan ku kalsoonayn nafteeda. Nooca saddexaad, al-kadaab. Waa ninka beenta badan. Haweeneyda kuma kalsoonaata ninka mar walba been u sheega, gaar ahaan haddii ay soo bataan isburinta ereyadiisa. Akhiiran waxay saameyn ku yeeshaan xiriirka nolosheena gaarka ah. Nooca afaraad, al-lacuub. Noocan ragga ka mid ah waa kuwa romantic ah. Gabadha marka hore waxay moodaysaa nin wanaagsan, balse ninkani kuma ekaan karo hal gabar oo uu xiriir badan yahay, ballamaha uu ka qaadana uma oofiyo. Nooca shanaad, al-macduum athiqa. Noocan ragga ka mid ah naftiisaba kuma kalsoona, sidaa darteed kuma kalsoonaan karo gabadh uu nolosha la wadaagayo oo waa mid shaki badan. Nooca lixaad, al-mutakabbir. Noocani waa kuwa isla weyn oo u arka gabadh kasta oo uu guursado inaysan u qalmin noloshiisa, sidaa darteed wuxuu isku dayaa inuu gabadh kala raadsado, balse nasiib xumo waa sidii uun waxba iskama bedelo. Nooca toddobaad, al-mutasallid. Noocan ragga ka mid ah awood uma laha inuu si wanaagsan oo saxan ula dhaqmo xaaskiisa. Markasta wuxuu jecel yahay inuu ku hadlo hal kelimo oo ah inuu ku hanjabo furiin iyo waan ku furayaa iyo waxyaabo noocaas ah, markastana uu ku soo celceliyo ereygaas. Nooca siddeedaad, al-bakhiil. Noocan ragga ka mid ah waa mid raadiya markasta siduu lacag ku kasban lahaa. Sidoo kale markuu shay iibsanayo wuxuu isku dayaa inuu raadiyo kan ugu sicir jaban oo ugu raqiisan. Calaamadahan oo idil waxay ku tusinayaan ninkani inuu yahay bakhiil aan waxba ka bixin oo uusan ahayn dhaqaaliyahan sida uu sheeganayo. Haddii uu kaa dalbo inaad ka dhiibto korontada ama lacagta gaaska adinkoo xiriirkuun yahay bilow, taasi waxay ku tusaysaa inaad ka digtoonaato oo aad ka fogaato xiriirkiisa oo idil. Maxaa yeelay guurka kadib waxaa ka maqli doontaa erayo ay ka mid yihiin, maxaad ugu bixin weysay jeebkaaga korontada ama biilka guriga. Video waa dhamaad maxaa sugaysaa marka? Maxaa dhaha? Subscribe dhac ku sii. Wash ku sii. Qac ku sii.